أحبتي في الله ما أنت تاريخ ذا وصدقك بيشتا سدحات لبدا كون أفري لباتنك وانا مالينمو سبتي حدي أتقبطو على مديه أن سو شاقني لبدي بري أن قراني سايكا سو شقينيني إن قارايين إلا إيو سدح إيو لباتن على مدوت وبشهر رمضان بدن كود إي سو بحايان دودي دا يمان تكوسو قد بنايا أحبتي في الله دوداني سفكي عن ودقيسو سفكي عنه ولا صعو wax bidca ah ama khuraafaad ahna kuma jiraan waa qala Allah iyo qala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسور هذا الشيخ ريمي channel waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar Allah subhanahu wa ta'ala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhiro janno leh inuu na siiyo dhammaanteena aamin 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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا. أحبتي في الله ما أنت تاريخ ذا وصدقك بيشتا سدحات لبدا كون أفري لباتنك وانا مالينمو سبتي waxaan idinkaga raali gareynayaa shalay dad badan isugaya laga yaabaa inaan u soo geliyo ilaajkii shalay nooma suurtoowin mashquul iska jiro awgeeda balse waxaan rabaa inaan hadirtaan idin soo gudbiyo dhagihiina iyo amaahiya insha Allah biidnillaahi alkariim. Videoga caynkan haddii aad ka hesho fadlan like-ta sidii roobka inooga yeel, subscribe-na soo dheh oo nagu soo biir, gambalelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax kastoo cusub aan soo gelinayno insha Allah. شارتنا كو قبو سيادو هشو الدال على الخير كفاعله. أحبتي في الله حدي أتقبطو على مديه أن سو شاقني لبدي بري أن قراني سايكا سو شقينيني إن قارايين إلا إيو سدح إيو لباتن على مدوت وبشهر رمضان بدن كود إي سو بحايان حلي يذا كالي وي سو بحي كران لكن waxa aad u badan inay ramadaantu ay soo baxdo calaamadahaasi sidaas ay tahayna dawadeeda bisha ramadaan ayay sahlan tahay ayay fududahay sida mar horba ay idinku sheegay marka hadiiba aad adiga isku aragtay a'uudu billahi minash rajim damira ciyaaye hadii adiga aad isku aragtay 23 calaamadood tay rabta ha ahaatee dawadeeda ayaa maanta kuu soo gudbinaya. أحبتي في الله دوداني si fiican u dhageyso si fiicanna ula soco wax bidca ah ama khuraafaad ahna kuma jiraan waa qala Allah iyo qala Rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam. أحبتي في الله أولا قبل كل شيء waxaa laga rabaa maadaama Ramadaan maanta 20 ay tahay 10 casho kaliya ay dhiman tahay 10 kan casho gudahooda inaad isku daweysid ayaa laga rabaa 10 kan casho gudahooda inaad isku daweysid ayaa laga rabaa biidnillaahi alkariim si marka Ramadaanta laga baxo haddii culeysyadii aan soo sheegnay ay ku hayeen si aad uga baxdo ama aad u xorowdo biidnillaahi alkariim. shayga koowaad ee ilaajkaaga ku ah wart ku waxaad soo diyaarsanaysaa malab saafi ayaad soo diyaarsanaysaa xabad sawda ayaad soo diyaarsanaysaa iyadana saafi ah waa laba shay waxaad kaloo soo diyaarsanaysaa xamru gobka caleentiisa ayaad soo diyaarsanaysaa waa 3 shay waaye
waxaad kaloo soo diyaarsanaysaa ee afaraad timirta loo yaqaano timirta Madiina amaba timirta cajwaha loo yaqaano oo saafi ah ayaad soo diyaarsanaysaa. Saan u malaynayo supermarketyada in laga helayo ayaan maqlay amaba la ii sheegay. Zamzamka haddii la helayo way fiican tahay. haddii aan la heli karinna biyahan oo ii sheeg adiga mooysaxa loo yaqaano caagadahan oo caafiga iyo qof yani shirkadaha magacyo ay ula baxeen ayaad soo diyaarsanaysaa. caagada midda ugu weyn ayaad soo diyaarsanaysaa ilaa iyo waxaa laga yaabaa 3 caagad inay tahay mid weyn mid dhexe mid yar. midda ugu weyn ayaad soo diyaarsanaysaa noocay doontaba ha ahaatee. muhiimaddu waa biyo nadiif inay ahaadaan. Number 1 waa zamzam. haddii la waayo ila markasto mutawafir ma aha zamzamka laakiin kuwan kale aan sheegayo waa la helayaa. koow waxaan ku dhahay saliid saytuun aan ku dhahay, xabad sooda ayaan ku dhahay, caleenta xamur gobka ama gobka caleentiisa ama sidriga qofba siduu u yaqaano ayaan ku dhahay. 3 4 waxaan ku dhahay timirta cajwaha ayaan ku dhahay, timirta Madiina haddii la helayo. haddii aan la helaynin timirta kaleenta ee caadiga ah ii sheeg adiga ayaad raadsanaysaa haddii la waayo. waxaan ku dhahay midda shanaad waa biyo zamzam. haddii la waayana biyahan mooysaxaha caadiga ah caagada ugu weyn ayaad diyaarsanaysaa. 6 waxaa ku ah saliid saytuun ayaa 6 ku ah, iyadana midda originaalka ah ayaa lagaaga baahan yahay. midda 7aadna waxaa waaye waxaad diyaarsanaysaa wax kastoo laysku qaras bixinayo. hadday kaniini ahaan lahayd, hadday sharoobo ahaan lahayd, haddii acshaab ama geedo mindaawaad hadday ahaan lahayd, wax kastoo laysku qaras bixinayo ayaad diyaarsanaysaa 3 beri ee ugu horeyso. ramadaanta gudaheeda ayay sahlan tahay aan ku dhahay. 7 shay ayaad diyaarsanaysaa. marka 7 shay aad diyaarsato maxaad samaynaysaa? 7 shay aan ku soo celiyo si sariica. 1 waxaan ku dhahay malab saafi ah, 2 xabad sowdo, 3 sidriga ama xamur gobka, 4 timirta cajwaha, 5 biyaha mooysaxaha, 6 saliida saytuunka, 7 wax kastoo la isku qaras bixiyo ayaad diyaarsanaysaa. 7 shay markaad diyaarsato qaabkii aad samayn lahayd ama isagu dari lahayd ayaa hadeertaana kuu soo gudbinaya biidni illaahi alkariim. si fiican ila soco. 7 shay markaad diyaariso axibatii fillaah waxaad samaynaysaa biyihii caafiga ahaa ama mooysaxaha ahaa ayaad magaranaysaa jeeg ku shubaysaa. markaad jeeg ku shubto madrasooyin ayaa kuu dhow. waxaa laga rabaa ilaa iyo 3 madraso. ardayda dhigata ha yaraadaano ha waaweynaadaano, arday yar ha ahaadaano arday weyn ha ahaadaano, ma fahantay? kuwa jiiraanka kuugu dhow ayaa la rabaa. dugsiyada ma dooranaysid, dugsi heblow ma dhehaysid, dugsi xagga ku yaala adigoo koo kala gudbaayo lama rabo macnaha. 3 madraso qur'aan ayaad caagadii biyaha ahayd jeegi aad ku shubtay 3 madraso ayaad la aadaysaa. 3 madraso maalinkaasi waxaad u diyaarinaysaa arday waaye. kulley hadday way yaryar yihiin ilaa iyo 6 saac in la qadiyo way dhici kartaa, laakiin iyaga soon waajib kuma aha. waad ka farxinaysaa, macmacaan ayaad u iibinaysaa sida nacnac iyo shukulaato iyo wixii la mid ahay ayaad u iibinaysaa. macallinkana waad ka faraxsiinaysaa. ii sheeg aday kastoo ayaad u laabaysaa wixii tabartaada ah. fattaqullaah masdactum intaas ma ku dhahayo. 100,000 shilin Soomaali ah waad u laabi kartaa, $10 u laabi kartaa, $5 u laabi kartaa. wixii tabartaada ah ayaad u laabaysaa iyo ka badan waad u sii laabi kartaa. طيب 3 madraso markaad adiga aad saas ku samayso tahliil ayaad leedahay. macallinka aad leedahay macallinow ii amar awlaadan isha qur'aan hebel ma dhehaysid. waxaad leedahay macallinow ii amar tahliishan waxaan rabaa ama casharkan waxaan ka rabaa dawo ayaan ka rabaa. anug walbo qur'aan wixii ilaahay u fududay akhri dheh. macallinka aad u sheegaysaa isagana wuu dhahayaa awlaad miyaha tahliil ayaa la rabaa. awlaaday, caruuray, ardayay tahliil ayaa loo baahan yahay. gabadhan walaasheena u baahan tahay ama wiilkan
walaalkeena u baahan waxa la idin ka rabaa qof walba qur'aan wixii ilaahay u fududeeyay ayuu akhrinayaa markuu akhriyo intay wadaan ayaa marka midig ayaa laga bilaabayaa weelkii tahliisha ku jiray ama cashirka ku jiray midig ayaa lagu bilaabayaa dhag waa la soo marsiinayaa canugaasi asagoon la qasbin ayuu wuxuu akhrinayaa wixii ilaahay carabkiisa uu ka soo bixiyay qur'aan hebel akhri lama dhahayo suurad fulaan akhri lama dhahayo suurad fulaan akhri lama dhahayo ii sheeg adiga iyaga kaskooday qabaan kii qul wala akhrinayo kii barab alfalaq kii barab annaas kii faatiha akhrinayo kii qur'aan un bay akhrinayaan khalaas midkaas ayaan wanaagsan ilaahay carabkoodu uu ka soo bixinayo qof ayaa laga yaabaa inuu ilaahay qalbigiisa ku soo rido yaasiin inuu akhriyo waad ku soo wareejinaysaa darashadii koowaad waaye waad baxday darashadii labaad saas ayaad yeelaysaa darashadii saddexaad saas ayaad yeelaysaa haddii waxba aadan hayninna macallinka umbaad kastoo u laabaysaa waxaad leedahay macallimow isheeg intaas ayaa codsigaasaan wata ayaad leedahay laakiin waxaa kasii fiican awlaadda in laga faraxsiiyo macallinkana kastiisa loo laabo saddexda madrasa wax weyn ma kugu qaadanayso waa nacnac kiilo nacnac ah waaye shukulaato kiilo ah waa 1 kiilo maanta waxay qiimo ay leedahay ma wax ma garanaysaa $2 ah waaye hataa ii sheeg $5 aan gaaraynin waaye saddexda madrasa haddii la isku daro $15 ama $10 hataa ma gaarayso nacnacooda waa fahantaa u malinaya sidiiyaa samaynaysaa haddii laakiin lagu amro yacni madrasadii lagaa amro intaan bixi lagu dhaho waad ka tagaysaa taas mid kale ayaad u gudbaysaa alxaasil 3 madraso kuu dhow ayaad sidaas samaynaysaa tahliishii ayaad haysataa weelkeedii ayaad ku celinaysaa marka weelkii moosaxaha koodii hore aad ka soo shubtay lanjeegii aad ku shubtay waad soo tahliisha lagu soo tufay weelkoodii ayaad ku celinaysaa afka ayaad ka xiraysaa meel ayaad dhigaysaa hawsha weli ma bilaabanin waxyaabihii 7 shay aan kuu soo sheegay qaabkaad ku samayn lahayd ayaan kuu soo sheegayaa طيب waxaad soo qaadanaysaa haddana saliidii saytuunka ahayd ayaad soo qaadanaysaa hadduu alla kuuroon yahay wax yar xabad sooda ah ayaad ku daraysaa dhibic markaad ku darto weelkii ay ku jirtay saliid saytuunka waad ka shubaysaa baaquli ayaad ku shubaysaa baaquligaas adi aad ku shubtay dadka gurigaaga jooga dad muslimiin ah waay qur'aan yaqaano waay adiga iska bilow dadka gurigaas joogo isheg adiga ii akhriya dheh waxaa lagu tufayaa faatixad ka soo bilaabaysa suuratul baqara ayaa lagu xijinayaa suuratul ahqaaf ayaa lagu xijinayaa suurat al-jinni quluuxiyo ayaa lagu xijinayaa suuratul ikhlaas ayaa lagu xijinayaa suuratul falaq ayaa lagu xijinayaa suuratul naas ayaa lagu xijinayaa 7dan suuradood waxaa lagu tufayaa saliid zaytuunkii ayaa lagu tufayaa seen ku dhahay hal shay kaliya ku diyaarsan casharkii ama tahliishii ayaa ku diyaarsan biyahaas ama zamzam ha ahaadaano ama muwasaxii ha ahaadaano waa qadar caagaas litr iyo bar inuu yahay ayaan jeclahay haddana waxaad diyaarsatay saliid saytuunkii ayaad diyaarsatay saliid saytuunka 7 suuradood ayaad ayadana ku tuftay in yar xabad sooda ahna way ku jirtaa waad walaaqaysaa markii lagugu tufo dadka gurigaaga joogo hadday yaqaanaan haddii aana aqooninna dadkaad ku kalsoon tahay ayaad u wacanaysaa hal qofaaba ku filan oo intaasba akhrin karo oo insha allah haddii kaleete 7 qofoodaad u wacanaysaa qof walba intaas u akhrinaya haddii kale waxaad adiga ka akhrin kartid ayaad akhrinaysaa halay aad akhrin karinna qof aad ku kalsoon tahay ayaad magaranaysaa u diraysaa sida suuratul baqara suuratul ahqaaf ama khalaq qof sidoo u yaqaano iyo suuratul jinni haddii aad ka saysid ma khalaq iyo baqradii aadan ka saynin qof yaqaano ayaad u geysanaysaa anta kale kaliga ayaa tufanay haddii adiga aad taqaanid ka sii fiican tahay adiga ayaa tufanay 7 suuradood qaadanaysaa baaquligii waa walaaqaysaa weelkeedii ayaad ku shubaysaa ama weelkii markii hore lagu soo gaday ayaad ku celinaysaa shaygii labaad ayaa ku diyaarsan Allahu akbar 7dan beri gudaheeda 10kan beri gudahooda ayaad magaranaysaa isku daweynaysaa ilaahay uu ka kala furfuraya sixirkaas bidnillaahi alkarim laba shay ayaa noo diyaarsan labadaas shayno
قرآن أيا كود يارسن بركدي كلامك الله أيا كود يارسن وياهي واحد سمينا يسا مركا إن تضبه علين وحمر قبكة أيا تصود يارسن يسا لما ربو إني قليل أحاطو لما ربو إني قلالناتو علين لما ربو وحكلو أن للربين إن أي دلدلوشاناتو أي دبع أي leedahay لأن علين تقار ويدلدلوشان تهي مقاركود وحكو قبتي عمل أي نقول دبع أي يلانيسا لما ربو تضبو علين oo sidri ah ama ma garanaysaa gubka ama xamurka ama xamru gubka ah ayaa diyaarinaysa oo nadiif ah oo cagaar ah oo qoyan macnaha nadiif ah cagaar ah ayaa diyaarinaysa marka diyaarisa ka bacdi waad mayraysaa waad raacsiinaysaa kaliya bas masas ma dhihis ma jibinaysid waad raacsiinaysaa maadaama hol laga qaban rabo waayahay waxaad samaysanaysaa laba dhagax dhexdooda ayaad dhigaysaa labada dhagaxna waa inay ahaadaan dhagxaan nadiif ah bir ma aha qorina ma aha sida mooyaha iyo kashoo kale ma aha mooye iyo kal oo waxaa jiraan oo bir ah iyagana ma aha walaa macdan ma aha walaa bir ma aha waxaan ku dhahay dhagax qofkii haysto kuwa bajiyaha lagu shiido axsan waaye muhiimaddu waxaa waaye haddaadan haysanin xitaa kuwaas laba dhagax oo nadiif ah ayaad raadsanaysaa waad mayraysaa dhagaxaantaasi caleentii waxaad ku jajabinaysaa ma waxaad ku garaacaysaa labadii dhagax dhexdooda ayaad gelinaysaa marka inay wax ka daataan lama rabo inay wax ka daataan lama rabo si saani ah si tartiib ah oo degan ayaad u jajabinaysaa jak 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 marka sidii xinnaha oo kale ayay noqonaysaa way isku shiidmaysaa biyo kale ma ku daraysid iyagaas unbaad isku jajabinaysaa qoyaankii markii hore lagu dhaqay caleenta unbay leedahay qoyaan kale kuma daraysid kuwaas unbaad jajabinaysaa lama rabo inay wax kale kaaga darsamaan dhagaxii jajabkiisa iyo maxaa tartiib aad ugu garaacaysaa waxaa mataqaanaa waxaa la diidayaa inay kaaga daataan dhagaxii jajabkiisa iyo ciid kale iyo wasakh kale inay kaa gaarto ayaa la diidayaa بس وججبنيسا مركات دميساتو كبعدي ويل غوني ايات سو قادنيسا ويلكاسad ku qasaysa weelkaasaad ku diyaarsanaysaa waad soo qabanaysaa kuwii weelka afka gelinaysaa caago yar waaye afkaad ka gelinaysaa waad ku ridaysaa markaad dhamayso weelka dhagxaantii aad ku tumaysay iyagana weelkaad ku raacsiinaysaa saxnaad soo qaadanaysaa afkii aad raacsiinaysaa kan waa raacsiinaysaa cagaarkaasa la rabaa in haddana meeshii weelkii hadaayay caleenta aad ku ridaysay inaad ku riddo ayaa laga rabaa way fahamtana u malaynaya macani iyaga oo wax leh lama rabo iyaga oo wax leh iyaga oo cagaarkii iyo raadkii ay leeyihiin in la tuuro lama rabo raadkaasi waa haraagaasa laga yaabaa in ma garanaysaaye barakadii ama dawadii inay ku jirto ayaaba ay dhici kartaa markaasaad dhaqaysaa weelkii wax ku tumaysay waad raacsiinaysaa kii kale kor aad kaga geynaysid waad raacsiinaysaa weel nadiifaad ku shubaysaa markaas caagadii hadday qashinkii caleentii aad ku ridaysay wixii aad tuntay aad ku ridaysay ayaad ku shubaysaa culib marxaba markaad taas samayso weelkii waad xiraysaa hadda waxaad diyaarsatay waa tahliishii waa saliid saytuunkii oo lagu daray xabad soodadii saddex waay waxaa kaloo diyaarsatay sadrigii ayaad diyaarsatay afar shay ayaa anta diyaar kuuga ah saddexda shay kuu hartay waxaa waaye timirtii cajwaha ahayd malabkii iyo wixii laysku qaras bixinayay keliya ayaa kuu dhiman afar diyaar ayay kuu tahay afar diyaartku waa casharkii tahliisha waaye xabad soodadii iyo saliid saytuunkii oo la isku daray iyo sadrigii ama xamurgobkii afartan ayaa diyaar ku ah saddexdan ayaa kuu dhiman weli hawsha ma aad bilaabin haddaba la soco ma aad bilaabin diyaar garow unbaad ku jirtaa malabka saafiga ah waad soo qabsanaysaa waad soo diyaarsanaysaa timirta cajwaha ahayd waad soo diyaarsanaysaa shaygii laysku qaras bixinaya waad soo diyaarsanaysaa dawadii ayaad bilaabi rabtaa marka kow dawada markaad bilaawisid habeenkii markaad beri aad bilaabi rabto ama xilliga saxuurta ayaad rabtaa inaad bilowdo ilaan sona lagu jiraa xilliga saxuurta ayaad bilaabaysaa
markaad rabto inaad cawada camal aad isticmaashid waxaad samaynaysaa biyo aad ku qubaysato ayaad diyaarsanaysaa. waxaad ku diyaarsanaysaa baaldigaas meel nadiif ah oo bannaan ah ayaad dhigaysaa. waxaa la rabaa habeenkaas qabowga inuu ku dhaco ayaa la rabaa. waad fahantay soo maaha? markaasi waxaad ku daraysaa furkaad ku cabiraysaa 3 fur oo biyihii sidriga aad diyaarisay. ilaa markaad 3dii caleen aad diyaariso weelka aad ku shubtay waad buuxinaysaa weelka. biyihii waad buuxisay. baaldigan aad ku qubaysan rabto oo bannaanka aad dhigi rabtid waxaad ku shubaysaa 3 fur ayaad ku shubaysaa. hal mar dib aan ku celiyo. sidriga aad adiga diyaarsatay sidriga aad adiga diyaarsatay biyaha aad ku buuxinaysid waa biyihii 10ka. ha ilaawin ama tahliishi waay. tahliisha weel weynay kugu jirtaa. kanna weel yar biyaha caafiga midka oo dhexdhexaadka ah ayaad ku shubanaysaa ama moysaxaha midka dhexdhexaadka ayaad ku shubanaysaa. marka xamurkii amaba gobkii caleentii gobka aad adiga tuntay aad shiiday aad ku shubtay biyihii nadiifka ahay aad raacsiisay aad haddana weelkii aad ku shubtay weelkii tahliishaad soo qabsanaysaa weelkii yaraa waa buuxinaysaa. waxaa aad u wanaagsan lahayd inaan practica aan ka sameeyo. markii afka la furo ayaan practica aan ka samayn doonaa insha Allah biidni Illaahi alkariim. marka gobkii waa ku diyaarsan yahay. waa xamurkii gobka ahay caleentii gobka ahayd waxaa ku diyaarsan caleentii gobka ahayd iyo tahliil lagu shubay. marka baaldiga biyaha aad ku qubaysan rabtid 3 fur ayaad ku shubaysaa. meel nadiif aad dhigaysaa oo sare weli meel hoose ma aha. biyahaas qabowgaasaa ku dhacayo. waxaa laga rabaa xilliga saxuurta markaad soo kacdo in aad qubaysato. waxaad ku qubaysanaysaa baaf musqusha ma aha. meel jiiraad galaysaa gurigaaga ka tirsan waad qubaysanaysaa. baafkeed ku qubaysanaysaa. madaxaad ka bilaabaysaa. marka hore madaxaad ka bilaabaysaa. khalaas baaldigii waad ku qubaysanaysaa. amaba haddii aad heli karto gurigaada geed uu ku yaallo geedkaas hoostiisa ayaad ku mayranaysaa. geedkiina biyahaas wuu ku cabayaa. ii sheeg adiga geedkaasna dawo ay u tahay. meeshaasna lugta iyo cagta iyo lama marinayo. ma fahantay? waad qubaysanaysaa. xilligaas lagama rabo inaad istijooto ama aad magaranaysaa nijaas ay kaa imaado lama rabo. markaad xaajadaada soo dhammaysato kabacdi ayaad biyahan ku qubaysanaysaa liajli dawaa waay. waayahay. markaad mayrato kabacdi waad qubaysatay. biyahaasi meel nadiifaad ku daadinaysaa ama geed hoostiisa. musqusha ma geynaysid almuhim iyo meel lagu soconayo ma geynaysid waayo kalaamullahi ayaa meesha ku tufan. culim okay. marka waxaad samaynaysaa markaad qubaysata kabacdi waxaad samaynaysaa xilliga saxuurta waaye. inta aadan saxuuranin shaygii laysku qaras bixinayay ayaad isticmaalaysaa. waxaad isticmaashay 3 shay waaye. waa tahliishii shaygii laysku qaras bixinayay iyo sidrigii ayaad ku bilowday sheekada. 7 shay waa ku diyaarsan yihiin. culim waa yahay. markaad waad qubaysatay tahliishii iyo sidrigii aad ku qubaysatay biyihii meel nadiif ah ku daadisay shaygii laysku qaras bixinayay ayaad isticmaalaysaa. shaygaas haddii loogu talagalay in ayadoo wax la cunin la cabo amaba la isticmaalo sidaasaad yeelaysaa. haddii kaleente markii wax la cuno kabacdi la isticmaalayo waad isticmaalaysaa. dhakhtarkaad ka soo qaadaysa ayaad kala tashanaysaa. macnaha anoo baahan maan isticmaalayaa mise anigoo dhergan ayaad leedahay. haddii lagu dhaho adigoo baahan intaadan saxuuranin ayaad cabaysaa wixii lagu qaras baxayay. haddii kaleente labadaba waqti waa ku caadi loogu dhaho saad doontid amaba gaajo ku cab ama dhirag ku cab. haddii lagu dhaho gaajada ayaa wanaagsan in lagu cabo. marka hore isaga ayaa la cabayaa. kabacdi baashii waad isticmaashay oo lasku qaras bixinayay ayada ayaad cuntay. timirtii cajiwaha ahayd 7 xabo ayaad ka cunaysaa. 7 xabo markaad ka cunto kabacdi malabkii ayaad soo qaadanaysaa.
saddex qaado ayaad galaas ku shubaysaa, galaasaad ku shubaysaa. biyihii tahliisha ahay ayaad ku shubaysaa, waad qooshaysaa, waad qasaysaa, waad qasaysaa, waad qasaysaa, waad qasaysaa, waad cabaysaa. markaas ka bacdi saxuurtaada cunaysaa. biyo wixii cabi kartaa waa cabi kartaa, caano wixii cabi kartaa waa cabi kartaa, gaxwo, shaah waad cabi kartaa. laakiin kuwan ayaad ku bilaabaysaa. kabacdi waad saxuuratay mooho, khalaas wixii cabtaa cabtay, wixii saxuurtii waxeed way dhamaatay mooho. masaajidka ayaad rabtaa inaad aado haddaad rag tahay, haddii dumar tahayna gurigaada ku tukanaysaa mooho. markaad saxuurato tahliishii cafwan, markaad saxuurato saliid saytuunkii iyo xabad soodadii kuu diyaarsaneed ayaad marsanaysaa. korkaaga dhan ayaad marsanaysaa, meelaad dhaafaysid ma laha. salaad subaxna waqtigeeda ayaad ku tukanaysaa. kabacdi seexo amaba kabacdi magaalkaada gal. maalinta koowaad sana yeelaysaa, maalinta labaad sana yeelaysaa. hadda saas waxaad ku isticmaashay mataqaana, waxaad ku saan ku isticmaashay waa malabkii, waa wixii la isku qaras bixinayay, waa cajwihii, saliid saytuunkii, xabad soodadii, tahliishii iyo sadrigii. allahu akbar, toddobadii shay baad isticmaashay. marka habeenka koowaad saana samaynaysaa, habeenada labaadna saana ku wadaysaa. habeenka labaad, habeenka saddexaad, habeenka. marka waxaa fiiro gaara mudan biyaha tahliisha oo markasta ii sheegay saddex fur lagu shubooyo, malabkana iyada lagu cabooyo. hadday kaa dhamaato sidii aad samaynaysaa. haddana madrasadii ayaad tagaysaa, madrasooyinka saddex madrasa ayaad tagaysaa, waa lagu soo tufaaya. haddana muhiimadda biyahaas inay kaa dhamaadaan lama rabo, laakiin saliid saytuunka way ku gaarsiinay, timirta way ku gaarsiinay. shay la isku qaras bixinaya waa kaas. shay la isku qaras bixinaya marka hal mar unbaad isticmaalaysaa. habeenka kuugu horeeya unbaad isticmaalaysaa, mar kale ba isticmaalaysid. waxaad isticmaali kartaa calooshaada hadday baxdo ma isticmaalaysid. haddii calooshaada aysan bixin waad ku noqsanaysaa habeenka labaad. inta kale saasaad yeelaysaa. marka waad fahanteen u malaynayaa. ayadoo baraatika ayaa wanaagsan, fiidiyogiina waa uu dheeraaday. intaanan ka bixin walaalayaal, intaanan ka bixin, ilmihii agoonta ahayd dharkoodii ayaa loo baahan yahay. iidii waxaa ka dhiman 10 beri kaliya ayaa ka dhiman. maanta ramadaan waa 20. axibbatii fillah, 10kaas maalmood dhiman waxaan rabnaa ilmihii agoonta ahayd dharkooda ayaan u baahannahay. 7 gabdhood ayaan helnay dharkooda. 7 gabdhood dharkooda ayaan helnay. 20 gabdh ayaa inoo dhiman iyo 33 wiil. insha Allah gabadhii waxaa loogu labisayaa $50, wiilkana waxaa loogu labisayaa $40. lambarada aad noogu soo hagaajin kartidna halkaas ay ku qoran yihiin. waa 2526589317. EFC dahwa uu leeyahay. magac ku soo baxay waa Cabdulqaadir Sayid Ibrahim. magac halkaas ku lambarka halkaas ku qoranna, lambarka halkaas ku qoranna waa 2526 hal kale 304910. isagana EFC ayuu leeyahay iyo WhatsApp. intaasaan soo gabagabaynayaa biidnillaahi alkariim. lama fahmayo waan ogahay, waan isku dhex yaaciyey. baraatika ayadoo ahna waa samayn doonaa. waxa ay dhici kartaa in magaranaysaye i'tikaaf aan galno haddii ilaahay uu inoo kaso insha Allah. fiidiyoyaasha waa la soo gelin doonaa, ani aan soo geliyo ama qof kale ha soo geliyo, laakiinse ilmahaas iidda inaga soo dhammaystira. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.